الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أغبض أولياء عندي لمؤمن خفيف الحاد ذو حد من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بأصبعيه وقال: عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله. ilaahay caza wajalla adduunyadan isagaa ina keenay. hal waddana waa laga soo galaa, waa dhalmada. uma asabiila yasarahu baa ilaahay yidhi. qof kastoo adduunyadan jooga dariiqaasuu soo maray, waa dariiqa laga yimaado. waxa uunu qofku adduunyada yimiday isagoo aan waxba wadan, aqoonna aan lahayn, asbaabta bini aadamku ay ku noolaadaanna aanan wadan, hadal aanan garanaynin, oo jaahil ah. qaraarkaas waa qaraar ilaahay xaggiisa ka yimid in adduunyada dariiqa laga soo galo. qaraarka labaad waxa weeyaan ilaahay caza wajalla uu go-aamiyey in adduunyadan laga baxo oo dariiqa dhimashada la yidhahdo looga baxo. hebel baa dhintay macnaheedu waa hebel baa adduunyadii ka baxay weeyaan. qaraarka saddexaad waxa weeyaan adduunyada marka laga baxayo bini aadamku adduunyada waxba kama qaataan. maalintii adduunyada ay soo galeen siday ku yimaadeen, fara madhnaan, gacmo madhnaan, qaawani, magac la-aan, sidii buu qofku adduunyada maalintuu ka baxayan uu kaga baxaa. ma maqal baan u malaynayaa qof dhashay oo magacii la dhashay. qof kasta markuu dhashaa magaca loo doondoonaa. maxamed u bixi, cabdiraxmaan u bixi, saciid u bixi, saacad u bixi. maalintuu qofka adduunyada dhiman uu ka baxayana magacii loo bixiyey adduunyada loola baxay uu ka hadha magacaas. waxaa laga bilaabaa markuu dhintaba meydka qabrigiisa diyaariya, meydka maskiidka nacashka uga soo qaada, meydka kafanka u soo gooya, meydka ahaan aaskiisa u diyaar garowno, reerkii iyo qaraabadii u yeedha meydka u aaskiisa ha loo dareeree. magaciisi la hadal qaadi maayo. waddankan jabuuti masaajid ku yaalla magaalada bartamaheega, masjid xamuudi baa la yidhahda. masaajidkan idaacadda laga addimo weeyaan. ninkii dhisay nin xadaramiya buu ahaa oo saalixa, oo aqaladii uu lahaay oo dhan waqfi buu u bixiyey markuu dhimanayay. waxaa laga sheegay maalintuu dhimanayay gacanta kafka ii bannaaneeya buuhi, ii bannaaneeya. maxaad uga jeedaa baa lagu yidhi. waxaan uga jeedaa buuhi caamada ayaan tusinayaa in adduunyada aanan waxba laga qaadan. sidii lagu yimiday uunbaa adduunyada loogaga baxaa. laakiin qofka waxaa raaca adduunyada ka raaca waa camalkiisa. camalkaasi ama ha samaado ama ha xumaado. adduunyadana ilaahay caza wajalla bini aadamka wuxuu u keenay inay adduunyada camiraan maaha, inay adduunyada dhisaan ay wax ku beeriyaan maaha, in adduunyadan ay wax ku daraan maaha. ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi: innaa naxnu narisu اlarda waman calayha wa ilayna yurjacuun baa ilaahay yidhi. arlada korkeega waxa yaalla annakaa dhexli doonna baa ilaahay yidhi. ilaahay waxba ku fali maayo daarahan iyo dukaanadan iyo warshadahan iyo diyaaradahan iyo caasimadahan adduunyada ka dhisane. waan baabi'inaynaa weeyaan, waxba ku fali mayna, waan baabi'inaynaa, waan masaxaynaa baa ilaahay leeyahay. kuwa adduunyadan camiraya ee dhisaya ee dhaqaya ee dhalaya ee fikiraya ee dhismahayga ka fikirayana iyagoo qaaqaawan oo sidii adduunyada ku yimaadeen maalintii dhasheen ay u qaawanaayeen
ayay adduunyada kaga soo baxayaan ee noogu soo noqon doonaan baa ilaahay yidhi marka adduunyada qofka laba shay mid un baa ka raaca ama camal wanaagsan baa adduunyada ka raaci ama camal xun baa qofka adduunyada ka raaci nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadu way weydiiyeen man akyasu nnaasi wa akramu nnaasi yaa rasuula allah dadka qofkeebaa ugu caqli badan uguna karaamo badan nebi allow noo sheeg waxau nebigu yidhi akharuhum dikran lilmowt dadka inta badan geerida iyo dhimashada xasuusanaya ayaa dadka ugu caqli badan buu rasuulku yidhi wa ashadduhum isticdaadan lilmowti qabla nusuulihi inta mowtku ku soo degina waa kuwa inta badan aakhire iyo geerida u diyaar garoobaya ulaa'ika hum lakyaas dadkaasaa caqli badan buu nebigu yidhi dahabuu bisharafi اdunya wa karaamati alaakhira sharaftii adduunyada taalla iyo karaamadii aakhirana kuwaasaa la tegay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam caaqilku waa kaas inta aynan dhiman ayay dhimashada u diyaar garoobayaan maxay diyaarsanayaan marka asbaabtay diyaarsanayaani maxay tahay iimaan bay diyaarsanayaan acmaal bay diyaarsanayaan diin bay diyaarsanayaan tarju الnajaata walam tasluk طariiqataha faina الsafiinaةa laa tajri calى اlyabasi rukuubuka calى الnacshi yunsiika calى ma kunta tarkabu min baglin wamin farasin yowma alqiyaamati laa maalu walaa waladu wadamaة اlqabri tunsi leylaة اlcursi waxay diyaarsanayaan iimaan bay diyaarsanayaan qofku doon badda bilaa doon ma mari karo aakhirana qofku hadduu ku dhaco isagoon iyo dunyada ka qaadan taqwada iyo iimaan iyo alla ka cabsi oo ilaahay abuuray cilaaqo fiican aan la yeelan waa nin yidhi badweyntaa baan ku marayaa maaragtaane lug oo bilaa doon baan badweynta marayaa ma mari karaa ma mari kara nacashka maalinta lagu saaro wuxuu ku ilowsiin doonaa faraskaagii iyo gaadhigii laanguruusarkii iyo sariirihii qaaliga ahaa aad ku raaxaysanaysa baad ku iloobi doontaa yowma alqiyaamati laa maalun walaa waladun maalinta qiyaamahana kii maal badan lahaa maalkiisu anfici maayo kii qabiil laandheeraha ka dhashay qabiilkiisu anfici maayo kii awlaad badan lahaa awlaaddiisu anfici mayso wadammatu lqabri tunsi leylata alcursi mar allii marka qofka qabriga la dhiga buu rasuulku noo sheegay xadiis kale qabrigu sidaa buu iskugu yimaadaa deedna feedhaha qofka ayaa sidaa isku dhaafa haddii qabriga isku yimaadkiisa nin ka badbaadi lahaa buu nebigu yidhi sacad binu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam atadruuna man huwa sacad waa ninkii geeridiisa maalintuu adduunyada ka intiqaalay carshiga raxmaanku u gariiray faraxan liquduumihi imaadku adduunyada ka tegey bixidda sacad uu maalintii adduunyada uu ka baxay ayaa ilaahay jalla wacalaa carshigiisa raxmaanka u dhaqaaqay farxad daraaddeed